بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وقيبتي قدام بيسي من الحركات الباطنية المناوئة للإسلام عتبكي سو السعودي قبل الإجازة بعد الإجازة ومركا أن كسو جبين دونه waxaa doona axzaab mucaasira oo maanta kuwana darkaysaan doorashooyinka baarlamaanada leh kuwa waxaan sameynaynaa duuduuban u dulmaraynaa si markaa diimaha aan ugu gudubno yahuudiyada nagu soo horeysa kadibna nasraaniya iyo diima markaa ka jira hindiya haddii ilaahi subxaana wa tacaala yidhaahdo. darsigu caawa aad buu u gaaban yahay waana yurakiz akthar cala aljanib asiyaasi وحوجة ساريا قيبت سياسية أكثر منه على الجانب العقدي. إن كستو صوت أن ماشى أي موسوعات أو كانت أي تهاي إن لقاها الله جانب كهرون هانتي يسوي عقدي جاء. معنو كهل لأن حركة لما قعب هذي حركة أمل أو إذا لقسو جابي أفواج المقاومة اللبنانية. meesha lubnaan aad arkaysaan waa meel aanan sahlanayn. intaana waxaad aragtaan miidiyaha iyadoo dad is-eryanayaan baarlamaan iyo madaxweyne lagu dhegan yahay iyo ra-iisul wasaare iyo waxbaa la dilay iyo shiica hadashay iyo duruus baa ka daba hadashay iyo jumbulaad baa hadal yiri iyo howlahaadaad naqashaan. run ahaantii way habboon tahay qofka muuminka cala aqal waxaa la isku haysto inta saamiga diineed runtii khilaafka kaga aadan inuu qofka fahmayo aad bay u wanaagsan tahay si marka uu fahmo yuu taageerayaa ama yuu hiilinayuuna ka hiilinaya. xarakadan waa xarako shiica ah lubnaani ah ee hubaysan. waxaa sameeyey muuse sadr lubnaan buu runtii ka sameeyey xarakadan iyada ah 1975 waxayna markaa mathalaysay inay noqoto garabka militariga ah ee xarakada la magac baxday ashiica oo markaa iyagu isku tilmaamay inay maxruumin yihiin xuquuqdooda aanay soo dhacsan iyo iyada oo ka turjumaysa masaalixda shiicadu ay leedahay iyo in ay u muuqdaan madhab mutamayiz oo gooni u taagan oo ka soocan ahlu sunnaha iyo in ay run ahaantii muujiyaan marka la joogo siraac الطائفي isqabqabsiga meesha ka jira waxa iyagu ay yihiin iyo meesha loogu soo hagaagi karo. isku soo duuduubay waa dad leh innaga waxaan nahay dad shiico ah waxaanu u dagaalamaynaa masaalix shiiciye ah waxaanu ka turjumaynaa masaalix shiiciye ah iyadoo saa ay tahay haddana habka aan waxa uga turjumaynaa waxaa weeye oo ay tahay in aan janax askari aanu samayno garab military dhaqdhaqaaqsi military leh ee hubaysan. hadalku waa intaa. taasiiska marka loo baxo kadib bishii ramadaan sanadkii 1933 waa miilaadiga ku beegan 1393 ayaa muuse sadr wuxuu hubeeyey dadkii markaa meesha joogay junuub lubnaan koonfurta lubnaan deganaa hub buu siiyey wuxuu yidhi waxaad bilowdaan bal isdifaac. ujeeddadana waxay ahayd buu leeyahay isaga markuu sheegayo shiicada horta inaanu aad iyo aad u difaacno maadaama aan dagaal oon kula jirno nimanka iyo yuhuudda ah dagaalkuna dagaal ka socda falastiin almuxtalla meesha la haystaha oo la haysto oo ay noocan ma falastiin lagu dhagan yahay inaan difaacno. arrinkusi sidaa ma ahayn markii la gaaray 1973 wuxuu sameeyey xaraka la magac baxday almaxruumiin kuwii bimacnaa xuquuqdooda aanan helin oo deprived group waxay ku magacaabaan oo xaq aanan la siin. wuxuu marka raaciyey maleeshiyaad hubaysan waa markii maleeshiyaadka hubaysan uu sameynayay ama guutooyinka hubaysan uu sameynayay waxa ahayd 1975 markan way marka magacaabadu ay timid oo u bixinayo afwaaj almuqawama allubnaaniya. idan afwaajna alif baa laga soo qaatay muqawamadina miin baa laga soo qaatay
لبنان اللام بلغ سوقات أمل بين نقطي هبكا بلو سوق جابي كدب صاد جران كرتان با وحو سميي تبرع ميليتري أيو حكوسيي ميلا فربضان معسكرات حروين فربضان dadka la tababaray معسكرات كاس مركا waxay raacsanayeen منظمة فتح الفلسطينية qoladan ay ishayaan Hamas iyo gruubyada ay ishayaan inta marka waxa la sheegaa muddo aan yarayn buu Muuse Sadri gacanta ku hayay ilaa marka dambe isaga la waayay meel uu ka baxay aan la ogeyn oo u bixi doona masalada iyada Muuse Sadr waa nin ku dhashay magaalada Qum ee Iran ku taala 1928 wuxuu ka baxay jaamacadda Tahran kulliyadda qaybteeda xuquuqa ah law iyo wuxuu ka baxay qaybta dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa jira faculty iswadata law economics iyo politics wadawata iswata ah laakiin nin maaha cilmi sharci bartay inkasta oo muftina u noqday arimaha diinka horboodo hada nin cilmi sharci bartay maaha isaga iyo Khomeini ama ka soo hadalay ninkii al-haraka al-Khomeiniya darsi ugu dambeeyay aan ku tilmaanay xiriir baa ka dhaxeeya xiriirka waxa la sheegaa Ahmed oo ah Khomeini wiilka uu dhalay baa waxa uu guursaday gabar oo Muuse Sadri abti u yahay Muuse Sadri baa gabadha abti u ah waxa qaba marka wiil Khomeini marka uu dhalay xagaana marka liinayar oo isku xiraya marka jira طبعا waxa la sheegaa Muuse Sadr 1958 buu aaday xagga iyo Lebanon aaditaanka uu aaday Lubnaanna wuxuu ku saleysnaa amar ka soo baxay shaaha Iran meeshu markii iska joogay kadibna wuxuu helay jinsiyadda Lubnaaniyada ayuu gacanta ku dhigay inuu jinsiyadda helo waxa ka dambeeyay qaraar uu soo saaray Fuad Shahab oo ahaa nin marka isaga الرئاسة الجمهورية لبنان مركا قعنتا كوهي انت ودحي سيكون 1958 يكون 1964 نينكي ماشا مدحوينا كاها نينكا بالارن صار امر الا يهدا وحي سويديان ددك وحبره قرارك كان او نين انو سيدن دغدغه او كهله جنسية لبناني waxay kamid waxyaaba ilaa hadda dadka ama ka ku noqdo ay ogeyn maxaa yeelay qof aan nasraani ahayn oo jinsiyad Lubnaani degdeg ku qaadan kara lama hayo hadee noqon lahayd Falastiiniinta meelaha degan qalada kale jabalada degan kuwa degan Suuriya way ku adagtaa ila aan waxa la hayaa qabaa'il fara badan oo abka ab degan oo intaasoo boqol oo sano degan ila aan jinsiyad Lubnaani aan helin oo dadkan ugu badan ee xagga Ameerika meelaha taga iyo u baxsaday Lubnaaniyiinta waxay u badan dad jinsiyad waay oo maxruumiin waxba aan helin ninkan marka muddeer inuu inta joogo si inuu Yurub joogo oo kala markiiba nationality gacanta ku dhigo waxay kamid tahay waxyaabaha isweydiiyeen طبعا isagoo la ogyahay inuu Iiraani oo qum ku dhasho Iiraan ka yimid dadka kan dhaxdoodana dakhiil uu ku yahay nin dhaxdusay uu yahay oo aan ka tirsaneen oo beeshii dadka meeshii degnaa ama ka tirsaneen وفي نفس الوقت بهذه السهولة وجنسية وقات وحلا لا يابون طبعا هذا ما أنت هدي يوروب هلا لما يابين محير وسيستم باجرة قفكي فورمولا ذا بوحي وكو قادنا لكن مال الباب يحريهين oo jinsiyadda aan la bixin inuu nin Iiraani intuu yimaado oo Bershiyan oo Arab uu soo dhaxdago kadibna si degdeg qaraarkan uu ka soo fulo min ra'iis ri'aasat al-jumhuriyya arrin sahlan markama waxa la sheegaa dabayaaqadii 60meeyadii ayaa wuxuu isku magacaabay ninka la leeyahay Muuse Sadr inuu yahay hogaamiye qaa'id li-Shiica hogaamiye yahay buu yiri arrinka isagaana run ahaantii waa loo tasdiiqi waa loo ogolaaday واتي هذا كون سجال ولا حد سجال كي مركل الجاري وحلا دارت إنه نقضه رئيس إنه كان نقضه أو هجاميو برلمان كمجلس الشيعة الأعلى وحجر المجلس الشيعي الأعلى أو أي سما يصير حكومة أي سما يصير مركب وحكان نقضي وحكان نقض رئيس وكان نقضي يجي لأن متطلبات إلى إنه كان مركب ما أنت كده ويسيح وجيسانين ويسيحوا جيسانية طلاب بهراء قادين وحي جايين مطالب إليه إننا وحنو باهنا إن المجلس الشيعي يالنا كده مجلس الشيعي مركا الله قلاد وعلى شيء مركا صوت كود آد بمركا أسرة مري وحين باللابين إن آدي آد وحوى قبطان مسارات فربضان والسياسية مسارات فربضان ودقالة مسارات فربضان اتجاه وطن كلا حيرينة انتو فرح لقلين أرنكانا طبعا وحالة الماما
وحقلنت أو حقلية موسى الصدر كو iyo nimankii muwaaranada ahaa ee meesha degan oo arrinkan barakeeyay oo iyaguna soo dhaweeyay waxa la sheegay haddana markii waxa la sameeyay المجلس الشيعي الأعلى مجلس lagu magacaabo oo baarlamaan oo kale shiicadu ay leeyihiin oo shiicadu si qayaxan ay ugu dhawaaqeen in ay ka goonin noqdeen nimanka ahlu sunnada ah ay yiraahdeen annaga waxaan nahay koox gooni u taagan sida muwaaranada gooni u taagan sunnadan xagga ay naga mareen shiicadan xagga u marayna qolada muwaaranada iyo xagga ay mareen idan markii wuxuu bilaabay Musa Sadr inuu markiiba sameeyo madaaris fara badan iyo nawaadi fara badan oo runtii loogu talagalay in dhaqdhaqaaqyada siyaasiga ah iyo anshatada tacliimiga ee kooxdu ay leedahay in marka lagu kobciyo dadkana marka runtii lagu wacyigeliyo waxayse taariikhdu ay tilmaantaa Musa Sadr ninka leeyahay 1978 markii la gaaray buu wuxuu yiri waxaan aadayaa booqasho xagga ay Lubnaan waxaana marka la sheegayaa ninka isaga markii uu Lubnaan yana dhihina Libyan aadayaa buu yiri markuu Libya tagay buu ka duulay baa la sheegay Yurub aada ila الآن maalu ku dambeeya lama say leeyihiin waagaas bimaana taariikhda marka mawsuucada markan ku salayno muddada dheer buu marka maqnaa يعني ومعنى اختفاء وقالي كاملا بمركز جلواتي مركز ضمبه ولا كلا جدال كيميدين ذلك مؤسسين توحى كسعتا وأن أبيح الدورنا إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا صار قرن كرت موسى صدري وكلماش ما كويس تاجن ليش محيا تاريخ كلا نائما دونتا أو مهمة أن كجهل الدورنا النبي بري وكلماش أن كويس تاجن وإيمان دونتا وحن ديد إن حلقات كلا صوص عضو أو مسارات كذا سياسية تاريخ ذا اللي هربوا ذا ماشي مركز كويس تاجن maxay aaminsan hadii lagu yiri waa shiico horta ogow in ay yihiin dad shiica sunna shaqaan ay kulahayn waxayna raacaan shiicada iyada kale madaahib salawi toon maahin madhabka jaafariga ah ayay qaataan jaafarin si gaaran u soo dul istaagnay iyada faafaasan aan ka soo hadalna firqada iyada number 2 nimankan waxa ka go'an inay wax bixoo ku soo dhacsadaan saadarteed ba waxa la yiri iyagoo shiica haddana waxay yiraahdeen annaga tandiir oo baahnin waxyaabaan falsafada iyo muxaadaraad baa la jeedinay waa la wacdina arrimaha noo yeelin qolada tabliiqa noogu qumaysay xagga noo jooga laakiin annaga waxaan al-janaah al-askari waxaan nahay garabka midigta ah ee militariga ah ee wax alla wixii xuquuq ay shiicadu ay leedahay xoog iyo dagaal iyo dhufsi ku soo dhacsanay qolada marka waxa la sheegaa iyaga iyo nimanka muwaaranada aan u bixi doona marka waqtigooda la gaaro iskama soo horjeedaan maxay Musa Sadri ninkan ta'siisiyay ama asaasay hadi الحركة waxa caawiyay inuu ta'siisiyo ama uu asaaso al-muwarana waa nimanka ka dambeeyay jinsiyada inuu helo waa nimanka albaabada dhan u fura markuu Lubnaan u yimid waa nimanka zaciim uga dhigay shiicada uga dhigay idan marka iyaga iyo muwaranada wax dhibaato marka ka dhaxaysa marka mal waa daaris waa ay u leeyihiin inaga muwaranada xaqeedii baa leenahay laakiin iyaga iyo muwaranada isku geeyay الشيعة زائد الموارنة اسكو درا لبدو وحي لدكو يهين السنة اي مركا ماشي جوج إلا يهدى قلاقل كسياسات اي كجير لبنان يوحي لا فريسان لا هاي يقلوا مال انت اسقاده ونمحون مالكو سوق دفتو وحاسابو نمان كان يقولوا كدن بي انتنا وحي لدكو يهين اسكو سو دودو بفرقها وبعجرها وبوجرها اسكو سو دودو دمان وحي لدكو يهين نمان كأهل السنة والجماعة مركا ماشي جوج حركة نيادة وحيلين أنك ليتكم منهن منك يهود اللي وحانا موجنة تصريحات كي وبحيي موسى الصدر مركي ودتك الربيع إنه عدك حلو هذا لو يروح كمذا لسنا في حرب مع إسرائيل والعمل الفدائي يحرجنا إنك كمس دقال كل مجن إسرائيل عمليات كان ضدك أي سميان فدائي أو هبل با ما أركتي إسقارحية اللي هن أنك إحراج من وصمين يا مركه هولها مجرين نبيل هذا نوع اللي هي إذا مرة دو يري أنك دجال كل ما جن محا صاهرة نمانك سنة منظماتك ورادة كجر حاجة فلسطين oo tiri inay yihiin ahlu sunna wal jamaa kuwa buu wuxuu ku tiri inay khatar nugu yihiin annaga waxa khatar nugu habiyo nimanka sunnada waxa kale oo khatar nugu ah al munaddamat al falastiniya Palestinian organizations meesha ka jira ahlu sunna xiga kuwaasaan khatar nugu ah oo dagaal kula jirnaa buu hada leeyahay waxa kamid khudbo uu ka jeediyay meel kala duwan ee Lubnaan marka kamida 1934 markii thawrada gacanta ku dhigay oo uu leeyahay hada leeyahay waxa kamida athawra
لم تمت في رمال كربلاء بل تدفقت في مجرى حياة العالم الإسلامي كعضون كان حقا بعاد ككربلاء كما دمان بوليه لكن ولي وسعدا كعضون كي مدمين ولي وسعدا لكن هدا أنبو مركا وحو باللابي إنه مركا وكرار قاته وعليه ما أنت لقى بالله قد بديسوا حكمني ابتداء من اليوم لن نشكو ولا نبكي ما أنت لقى بالله إن عبرنا أما إن أوينون برار ديرنا هنجسوجنا وحليها فاسمنا هو الرافضون ورجال الثار وحنا لو يقال إن نمن رافضون رج أرجوستان إن أجادا ماشى المركب وحلي هذا ضدك يسوي جوابين والرب الدجال قال يوم الدور وحلي الحسين ابن علي هذا المركب ولا الدجال لما يعني واجه الحسين العدو ومعه 70 إسوة تضوات الروح وتا أي عدو لا الدجال لما بيري يعني عدو أنا عدد كود لما قياسي كيرن وحي هذا أدي تربنا له بعد كده ومع ذلك وحنا محكورا ما أنت إنك أو عدد كين ودافسينها إلا تضباطا كر ودافسن وأنت سوكن عدو إنه أنساء بنين إن المارك وجوج إنما هذا كعدو وتلمامي ما أنت حاجة حاجة كل عيب إليها السنة عن مركب حاق نوي إذا المركب نين كان مركب يسكت ده إنه كر ودق شعارات فربضان وحركات وإلا ده وأصل هان حركة أمل مركب كسر جيدة أرن كان مركب وحموجنا يا ماشى والصعود هذا ليس حكمنا الإيمان بالله والتراث اللبناني وحن رميسنا إلهي هي رضا لبنان هذا الله قرر دي وحكمنا شعارات كيس العدالة الاجتماعية والوطنية social justice إلا هلو عدالة اجتماعية بالشديد وطنية إلا هلو وحيابها صو مركز ضدك كأور كعسده لكن ماشى والصعود وحكى لماها إنه وحنا ماشى وشجن إننا فهمنا وحكى لماها محا مذهب أهل السنة والجماعة أما ذاتك أهل السنة لا يقان محلتكو محا كسور جيدة طبعا مركب حرمنا إنا نفهمنا فورمولا واسدا مركب لبنان للجوغو وحي أهل السنة كسوهري وقاعد إني مركب لتكويهم اسكو صوت دوبة حركة يضع وحركة سياسية أرن دينيدنا شقاكم لها أمور الدينتا وحا أقوه إنه كيف كرام وامحي بمعنى داخل كاس وحي كييلي لهايين إنما أهل السنة سيدا أي لقطة أمرين لهايين إنت بك فكران حريرك إلى لهن عن العالم الخارجي وحرير يسوق محدودة أن مركا حوق بنين إذن اسكو صوت ضوضوبة وعلينا وأن من يوغ الشيعة وحي آميسين مركا واتقران كرتان هذا الكا مركا وحنكوسو قبين إننا وحا أن رنتي كآمين سنة حركة أمل وحي تهي وحانا موجينيا nimankan inay aad u fog yihiin nimanka sahaayinada zionismka si wala shaqeeyaan marka la joogo xagga Beirut marka la joogo Junub Lubnaan si wala dagaalsiin nimanka Falastiiniyiinta in xuquuqdooda soo dhacsan ay u diidayihiin mawaqifta soo waa mawqif muujinaysa nimanka ay meesha marka jiraan meesha marka waxa ku dhamaad harakaadkii ama maalmahan dhan aan soo haynay waxaan ku khasbanahay hal mar inaan dulmar yar ku sameeyo qaybta baatiniga ah maxana Xuseyn maxana Xuseyn وعم كسو هذا اليزيدية القرامطة الإسماعيلية النصيرية الدروز الحشاشون البابية والبهائية القديانية الحزب الجمهوري في السودان يسوون ظلم مرني مين دول الساق محوين ونوجحنا مالها الأحباش الأنصار الخميني أمل وحان دي بدي كوكو علينا مركلة وخاصة بأي تاينات آد وأقرصان أما دي بودا جيستان الدروز كو قلادة لباد القديانية قلادة سدحات الأحباش قلادة أفراد مهم ماها لكن هذا وطن عربة الجوكتين البابية البهائية لكن وحن نقول مهم سن قلادة اللي الدروز القديانية الأحباش قال هذا كان يوروب جوغا الأحباش ما دام دنمارك ما أنت أودي كلهن وضمان اسكندنافيان كا برلمان دي أي جلان نشادات كودا إليهن مساجد أي بلابان ضد فرلوه صوماليا أي ماشي جلان وأنا دي بقول الله بتام حي أمين سين سداد أنا وجد جوابها قلادة لباد وقلادة القديانية مسجد كان بروح ضبطنا أركيسان أن سويدين عيال كمان لجيسان كرانا ومسجد يجي إليهن وأنا دي بقول الله بتام محا أيهين محي أمين سيهن محا قلادة المركز الله وصل ضري قلادة كلا سدحات يضوى قلادة معركة الدروز دروزنا رك فربضنا ميديا هايستيو ضد فربض أركيسان وأفكارته آد ولا دعسنا هاي ورك مركز درزيين ومهم مركز إلا فهمه وإحنا كم انتهي جانا الله وقف مركز لا يسوق لكره عتب كإنه حجاي وحنا نقندنا أحزاب اتجاهات معاصرة سيبة جارهن ما أنت مصر وحد كجرة عصري مرسي مركز لسوق جاره قال أساسا حزب الوفدي حزب المرأة حزب الديمقراطية أحزاب تاس
fakar guud baanu ka siinayna maxay wax weyn nooga xiran marka malaha maadaama media wax badan uu daboolay laakiin inta ugu muhiimsan mawsuucada waxa hari doona al-yahuudiyya bifaraqiha iyo al-masiixiyya iyo adyaan la xiriir al-hind wixii ka jira kadib mawsuucada way gabagaboobaysaa hadda waxaan u badan xaqii runtii dhamaashaha ay dhamaan lahayd idii ilaahay subxaanahu wa ta'ala yiraahdo waxa la wixii baxay oo darsiyana walaaluhu way hayaan qofkii email lagu diri lahaa iyo qofkii dhageysan lahaa inkastoo walaaluhu say u badan yihiin loo wada diro oo aan waqti aan u helin laakiin waa muhiim maxaa meeshan jooga aniga haddaan badbaadno waxaa khatara ubadka in marka wax badan loo sheego waa muhiim ninka Soomaaligaana diin jacayl wuxuu ka gaaray caadifadiisu aad bay u badanta bari isagoo galin habeen waxaan xusuustaa qolaan axbaashta oo socda maana soo galay xagga istaabangan inuu joogna oo kutubtoodii wata أحباشتنا وان ضد أهل السنة والجماعة تكفيرية ونمن أن دين شقة كلها هين ونمن نوعا ما مذهب كشافعي شيكة الشقاء كلها هين كوا حركة الصومالي هر أردي سؤال نمن كان هلا سودوي ما لها فريسي ولا له إن لا دقي يستاهل بهاي محل دي ده نمن أستانت يكم مقطع قفك وما هو مقطع ونين كان وحية نين كان إنا سودوي يسيد إن قال إنا سودوي فرق يسمين يسمى كان قال كبد بادي سابو كان قال كبد بادي ساب مركا فرق السودان وكلاء وإن أن لو قابل عواطف وإن لو قابل علمي أقوم مركا ديار سنتهانا مركا ساد حقان كرتا ماشي السودان وإلى هنا وبالله التوفيق. و ومن ضنا كلام فوق ومن ضنا